السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa haybe daawadayaal waxaan doonayaa maanta inaan la wadaago muuqaal yar oo dib idiin xasuusin doona madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xilliga uu musharaxa ahaa ballanqaadyadii uu ballan qaaday ummadda Soomaaliyeedna uu ku soo jiitay waxa uu ka dhaweeyay waxa uuna ka dhaweynin. tusaale ahaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo hortaagan baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed shacabkuna ay ka daawanayaan TV-yada waxa uu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo musharax ah ballan qaaday haddii uu kursiga ku fadhiisto in uu argagixisada al-shabaab la dagaalami doono ciidamada xoogga dalka Soomaaliyana uu dhisi doono. waxaa number 1 ah amniga dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal laakiin ma moodid dawladdu inay dagaal ku jirto waxa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo kaliya hal dhinac shabaab baa meesha rabta weerarta shabaab baa meesha rabta qarxisa waxaan haynaa oo kaliya ama dawladdu ay haysaa tacsi iyo cambaareen dagaalku wuxuu noqonayaa laba geesood waa isu tageynaa ama hadday nabad qaataan waa fiican tahay hadday nabad qaadanna shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xildhibaanada dawladda kulli waa dagaal galayna maxaa yeelay nolol nooma diidi karaan nabadna nooma diidi karaan waxaan ku sameynaynaa tira koob ciidanka aan haysano oo howlgali kara ciidanka aan howlgali karinna howlgab baan ka dhiganaynaa xuquuqdoodana waa siinaynaa waxaan siinaynaa tababar ciidanka tababarka kii la yaqaanay maaha waxaan siinaynaa tababar wadaniyad yaan siinaynaa ciidamadeena waa dagaalyahano waa yaqaanaan sida loo dagaalo laakiin waa in la siiyo mabaadi'da ay ku dagaali lahaayeen waxaan ognahay shabaab inay ku dagaalaan diin aan sax ahayn ay gowracayaan qof ashahaadanaya iyagoo allahu akbar leh waa inaan siino daryeel ciidan aan daryeel lahayn ma dagaali karo oo calooshiis maran tahay waa inaan mushaahar fiican siino waa inaan caafimaad siino haddii uu dhintana caruurtiis inaan ka warqabno agabkoodu waa inuu dhan yahay qalab kasta waa inay haystaan oo ninka ciidanka uu kaga hortagi karo kuwa inkaarta ilaahay ku riday markaas waxaan ka rabnaa anshax inay la yimaadaan discipline kii ku takrifala awoodiis ama shacabka dhibaateeya ama ciidanka la shaqeeya dhibaateeya haddii khasbiyan wuxuu fees garanayaa ama wajahayaa sharcigu wajahayaa kii wax dilayna waa dilaynaa kii dambi galana waa laga goonayaa dambiga moralkooda inaan kor u kicino oo annagoo la shaqeynayna oo garab taagan oo caanaha iyo biyaha ka dawadna inaan moralkooda kor u kicino si ay uga hortagaan cadowgaan u soo maxaan ku raahday xayxaytay inay Soomaaliya u diidaan nabad iyo nolol u diidaan tan ugu muhiimsan waxa weeye command inay leeyihiin taliya fiican inay leeyihiin kuwa dagaalka galaya taliyahaasi uu yaqaano waxa uu dagaal galayo wax laga rabo shuruucdiisa waa in isaga naftiisa la siiyo tababar joogto ah maxaa yeelay haddii uusan lahayn tababar u baahan yahay hadda ciidanku iyo askartu waa saraakiishooda weyn. sidoo kale madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuu noqon doono nabadoon Soomaaliyeed dib u heshiisiin aan samayno dad walaal waxaan ku kala duwannahay male waxaa laga yaabaa siyaasiyiin inay kala fogeynayaan laakiin dadka Soomaaliyeed col ma aha waxaan xoogga saaraynaa aniga hadda ay doorataan madaxweyne noqon maayo nabadoon yaa noqonaya waxaan ugu tagayaa cid walba meesha ay joogaan waxaan xoojinayaa oda dhaqameedyada Soomaaliyeed oo rasmiga ah ayaan xoojinayaa mushahar joogtana u qorina hadduu Ilaahay yiraahdo. waxa uu ballan qaaday in qof kasta oo xarakada al-shabaab soo sheega ama qof kasta oo dhibaato ka soo gaadha qarax inuu magdhow dawladdiisu ay siin doonto ma ka rumeeyay ballanqaadyada maxamed cabdullaahi farmaajo bal ila daawo asagoo maalintaasi goobta baarlamaanka taagan kana khudbadeynaya dib ay idii xasuusiyo. yani sheegay waa sahal $1 milyan bishii meel loo dhigo qofkii soo sheega baabuurkaas qarxaya $100,000 in la siiyo haddii uu rabana dibadda loo diro dawladahaasi lacag ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda Soomaaliyeed badbaadiya in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u facilitate garayno waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxay annaga ka mas'uula annaga ilaalin weynin nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino
hooyooyinka iyo aabbayaasha ku dhinto ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan in aan u wadno maxaan ku idhahdaa dhaqaalihii ay waalidkood ka heli jireen macnaheedu waxay noqonaysaa marka shabaab oo kasoo horjeeda ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo dowladdii oo wadata shacabkeeda oo qofkii dhib ku dhaco ay daaweysanayso ama ay xuquuqdiisa maxaad ka filanaysaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu ummadda soomaaliyeed ku hogaamin doono? waxaynu ognahay magaalada muqdisho xilliga uu yimaaday in ay ka dhaceen qaraxyo badan, tusaale ahaan qaraxii October iyo qaraxyo isxigay. ha ugu dambeeyeen qaraxii ka dhacay dowladda hoose oo uu ku naf waayay injineer Yariso. daawade, adigu sideed u aragtaa maxamed cabdullaahi farmaajo inuu ballanqaadyadiisii ka soo baxay iyo in kale? maxaad ka filanaysaa inta u dhiman xilkiisa inuu qaban doono?